السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أصحابي ملكستو أجوكتان كسر هذا مركلة إيوه متكمل برنامج هذا ذكوت رجلنا ما أنتو سبديا وبرنامج كيني سدحاد وبرنامج كي هبي النمو وهبي النمو سبديا أو أحد أي سوق ليسو تاريخ دونا وحيكون باقتاي سجالي لباتن كبشة نوفمبر سنة كالبكون يشني لباتن هذا برنامج كان وكي سدحاد وانو هبا إنا سوى نوهشين معلوماتكي وركي أنو كسو قد بني برنامج كي صباح نمو إيا كي قلب نمو انت داوتي ويكون مهتسينيهين انت آن داولنا وحان رجيني يقولنا إني معلومات كاس إيا وركا حيسالي صوت داون دونان عاو قضبضا برنامج كان إذي كوها يوحا كمن نقون دونا هقاميها حوثيين عبد الملك الحوثي oo soo hadlay isagoo laga sugayay war muhiima oo ku saabsan xaaladaha isbedelaya iyo weerarada Israa'iil ay qaadayso haddaba sheekada ku saabsan al-Houthi warkiisa ayaan idin hayaa waxa soo kale aan idin soo gudbin doonaa iyadoo maanta ay tahay 29 November sanadka 2025 29 kasta oo bishan November dunidu waxay u dabaaldegtaa maalinta ay ugu magac dareen isbarbartaaga shacabka Falastiin haddaba meelo kala duwan mudaharaadyo isu soo baxyo ayaa si weyn looga dareemay wadamada Yurub halka wadamadii Carbeed iyo kuwii Islaamkuna la yiri inta Yurub ka soo baxday wax ka soo baxay ma jiraan haddaba sababtu maxay tahay iyana wixii laga qoray ayaa barnaamijkeedii kula wadaagaya Erdogan oo isaguna mar kale ku celiyay إسرائيل إني حبت جوجنتي كتمانيسو لكن محالة قبان كرا تاسا سؤاله وضبطا سير برامج كسوق عادنا إنا انت أكو جرنا أصحابي وحي ورانا سوكرنا وارد لسعودين دورا سفاري الرميد وحي كاعاوني سائنا ترير كاغا إيو صاحي بضا كنول دلال دورا آد غارسيسيد وحي آد ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheeriyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes. Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyay magaalada Nairobi aaga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena barnaamijku waa kii habeenimo qodobo muhiim ah ayaa noo soo socda balse markan waxaynu ku bilaabaynaa 29 November sanad walba waxaa dunida ay samaysaa isu soo baxyo lagu xusayo maalin loogu magac daray maalinta isbarbartaaga shacabka Falastiin sidii ay markaa dawlad u heli lahaayeen u xoroobi lahaayeen arrinkan waxaa ka shaqaysay qaramada midoobay oo maalinka asteesaysay kaalintayda sanadkii 1977 wixii ka dambeeyay sanad kasta 29 November waa la isu soo baxaa dunida dhan haddaba xilliyadan ama labadii sano ugu dambeysay waxay ku soo aadaysaa iyadoo xasuuq fara badan loo geystay Falastiiniyiinta guryooda la burburiyay la barakiciyay hadday tahay daanta galbeed hadday tahay Gaza كل ساس لو بابي
haddaba maanta waxay 29 dunidu waxay isha ku haysay dadka soo baxaya miisaankoodu inta ugu badan dadku waxay ka soo baxeen qaaradda Yurub wadamadii islaamka iyo kuwii carabta ee isxijinaya Falastiin cid soo baxday waa yartaa lagu leeyahay waxyaab la Soomaa gaaladii aqaylinaysa iyo dadkii muslimiinta ay la noolaa wadamada Yurub mudaharaad sameeyay qaar markuu ku doodayaan mudaharaadka dadka day xataa inay sameeyaan rabaan wadamada carabta laga sameey karaa kaala waa kaas adii khaliijka inta tagtay mudaharaad sameeyaan dib dabal lagu arkay marka sheekadaas marka halkaas ay baray aanid tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay waxa isu soo baxay dad fara badan oo marka oo caalamka ka tirsan iyo kuwa ka tirsan dawladaha carabta waxaana la xusayay maalinta isbarbartaaga shacabka Falastiin haddaba marka caasimadaha carabta iyo wadamada Yurub ayaa waxa lagu arkay dibadbaxayaal dadka taageerayaan waxaana ay ahayd maanta sabti ah munaasabada maalinta caalamiga ee isbarbartaaga shacabka Falastiin waxaana la sheegay in 29 November sanad walba ay tahay mid markaa la xuso qaramada midoobay ayaa asteysay sanadkii 1977 iyadoo munaasabadan la xusayay haddaba munaasabadan waxa ay ka dhacday meelo kala duwan oo caalamka ah oo ay ugu badan yihiin wadamada Yurub marka waxaa leeyahay cawaasim dawlad carabiya qaar kamid ah meelaha lagu arkay mudaharaadyada laakiin mudaharaadyada xoogoodu waxay ka dhaceen Ingiriiska Jarmalka Faransiiska meelahan Yurub aad looga soo baxay Mareykanka xataa qaybo kamid ah marka intaas marka waxay ku tusinaysaa dadka soo bixida sameynaya way ku yirihiin dawladaha islaamka iyo carabta marka arikaasu marka maanta xuskaas ayaa jiray qodobka labaad waa muhiim hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdimalik al-Xuuti ayaa hadlay maanta Xuuti waa la sugayay maalmahan xabadootin fiican ma jirto Gaza Israa'iil maanta ugu dambeysay saaki barnaamijkeegii erka dhulka badda inay ka duqeynayeen inkastoo Xamaas ay weli leedahay xabadootintu waa ilaalinaynaa taas waa meel Lubnaan waa aragteen nin weyn oo muhiim ah Hezbollah ka tirsanaa la dilay Suuriya waa kan waa la iska galayaa Xuuti warkiis ma xabadootintii ku baxaa isla xabadootintii Falastiin markii nimankii Falastiiniyiinta Xamaas ay galeen Xuutigu hawshu waa joojiyeen weeraradii badda uu ku qaadayay iyo gantaalihii soo tuuray wuxuu dhan uu joojiyay xabadootintii sugay hadda waxay sheekada way qasmatay Soomaa marka waxaa la sugayay inay Xuutigu soo hadlaan haddaba aan idin tuso jariirada la yiraahdo al-akhbaar ayaa goordhow waxay qortay warbixin ay leedahay Xuutiyiintu waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay u diyaar garoobaan wareeg labaad oo marxalad kale oo soo socota oo dagaal in loo diyaar garoobo sinaba ugama tagi doono shacabka Falastiiniyiinta iyo kuwa Lubnaan warbixinta way sii socotay waxa leeyahay hogaamiyaha kooxda Ansaarullah السيد عبد الملك الحوثي ayaa sheegay inay tahay shacabka Yemen inay ka soo qayb galaan iyagoo malaayiin ah fagaaraha la yiraahdo as-70 casarka axada markay qoraxda kuleelku ka yaraado si loo taageero shacabka Falastiin iyo Lubnaan sidoo kalena in loo diyaar garoobo wareeg kale oo la istaaban doono Israa'iil iyo Mareykan warkiisu waa cad yaasay horta wuxuu yiri sheeka waa dhiman tahay بريتو أو أحدا عصر كدب معجزة عن نجنوين معناه وقت كانوا قرحوا وكلي مركب بعد العصر عن قباش اللي رادو فقارها السبعين أسكوجي ماني ناوي ماشي صار صوب حسبة هل كان صرت وحان كتا غيرنا ولا علينا فلسطين إيه لبنان مد كلا ويدي شيء قوي شعبك يمنو مرحلة كلا
oo soo socota ha loo diyaargaroobo dagaal kale annaga iyo iyaga ma isdeenayno nimankan juqjuqayska ku wado dadka falastiiniyiinta weli laynaya lubnaan laynaya ma joojinayn annaga hawsha waan bilaabaynaa laakiin horta beri aan isu nimaadno beri marka waxaa la filayaa meesha in khudbadiisa oo meesha looga daaro dadka malaayiinta isku imaanaya inta tv waaweyn meesha looga dhajiyo markaasuu ku baaqi doonaa hadal weyn baa la leeyahay oo sida loo malaynayo ku saabsan in ay bilaabi doonaan dagaalkii ay kula jireen Israa'iil maadaama Israa'iil ay xabad joojintu iska indha tirayso oo maalin walba dad Falastiiniyiin ay leynayso Lubnaan ay leynayso marka waa kaas marka xooti waxaa leeyahay qolada kaliya ee Caraba ee nafta ku hartay waayo qolo kasta iyaga rabtaa inay difaacdo Lubnaan aragteen Hezbollah waxay rabaan maanta xooti inuu u aaray rabaan Falastiin waaba aragna Hezbollah way ka awood badan tahay way ka awood badan nimanka xootiga laakiin raganimo iyo geesinimo la isku dhaafaa lagu leeyahay nimanka Lubnaaniska oo meesha ku jira Hezbollah warkooda wax ku jira bale hadda marka maxay leeyihiin war labadaba aan u helin Lubnaan iyo Falastiin ba anaga ina sugayaan niman iska masaakiina waaye aan u argudnay leeyahay nimanka marka xootiga niman saas waaye qodobkaas ayaynu intaa kaga gudbaynaa waxaa noo soo socda Erdogan oo mar kale ka hadlaya xabad joojintii ay Israa'iil jabisay متعشى برشاد القرآن الكريم يعلم تشريعه هب عصري أونلاين أديكو جوجا كوريجا أما قبض على شقة مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن كهب عصري أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكم ذا قرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوى قلت وايد سعوطة فضلا هروكان وهي فاهينك الحديد من برض الشاشة كان المغضى هموكان دوكسيجا مركز دار التقوى شركة اسمها قريها قبل هومس شركة قبل هومس waxay mashaariic ka wadaa Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex 4 bedrooms duplex 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedroom 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo Turkish style ah guri kastana waxa uu leeyahay masaajid madaraso swimming pool iyo gym playground meelaha lagu caweeyo ama sitting area wiishashkii motor automatic ah ceelbiyood internet parking supermarket pharmacy cafeteria security guard iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyay wixii faahfaahin inta dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liban Ali adigoo kala xiriiraya telefoonada iyo emailka shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo qaybtii ugu dambeysay barnaamijka aynu maraynaa waa habeennimo sabdiya oo axad soo galayso qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa ninka Erdogan ahaa ayaa wuxuu sheegay maanta Israa'iil inay toos u jibinayso xabad joojinta laakiin waxa la isweydiinayaa ma aha markii koowaad markii labaad maxaa laga qaban karaa taas waa calaamad su'aal Turki markii hore waa ka maqnaa meesha waxa la yiri waxa la iska ceyrsanayaa masaarida iyo qadariyiinta waxaan iyo iska tacbaaniin Turki laakiin hadduu yimaado xogaa nimanka yacu naga dhihi doonaa Turki maxaa ka soo haray war kaliya ka soo haray ninkii Erdogan wuxuu leeyahay nimanka waa xabad joojinta jibiyay nimanka waa kuwaas waa kan xabad joojinta jibinay kuwii kale horta war xataa laga baahayo Masar iyo Qatar Erdogan baroon oo isagu afka ka dagaalamaya laakiin kuwa waxba ma hayaan haddaba aan tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray Erdogan ayaa waxa uu sheegay Israa'iil inay jibisay xabad joojinta iyadoo markaasi u maraysa qodobo aan markaa habboonayn oo aan sax ahayn madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wuxuu sheegay Israa'iil waxay jibinaysaa xabad joojinta iyadoo loo marayo marmarsiyo aan wanaagsanayn Hamas iyadu waxay qaadanaysaa hab dulqaad leh oo lagu ilaalinayo xabad joojinta inkastoo ay jiraan daandaansiyo xoog leh oo lagu hayo Hamas Erdogan wuxuu sidoo kale sheegay waxaa jira olole been abuur ah oo ka socda goobaha digitalka ah iyo warbaahinta gudaheeda
waxaana faafinaya warbaahinta sahnuuniyadda Israa'iil si looga hortago in dadkeenu ay muujiyaan midnimo ay la leeyihiin dadka Falastiiniyiinta ah ee la dulmay. meel fagaara uu ka hadlay maanta dad shiraya ayuu u qudbaynayay oo ku soo daray. marka wax weyn oo hadda waxa leeyahay Erdoganka laftirkiisa hadalkiisi wax macna uu sameynayaba ma jirto. Hamas way baxday Turkiga tagtay Istanbul way fariisteen ayaga wasiirka arrimaha dibadda dhibaatadana nala ku haya xabad joojintii waa ilaaliyana la leeyahay iyagii nimanka way jabinayaan maxaa sameynaa annaga hawsha galayn annaga inta yiri ilaa hadda war ay hayaan Turkiga laftirkooda dul qaatay ku hayaan nimankan waxbay maagan yihiin. marka xabad joojinta iyo waxa kan aan dul qaadano wareega labaad wada hadallada aan gudubno حالا قد با مركا ساكي واوجيدين الجزيرة waxay lahayd weerar cirka dhulka iyo badda ahba way sameynayaan markabay ka soo ridayaan madfaca mar diyaarada ka soo ridayaan mar dhulka ka ridayaan intaas maxay sameynayaan in Al-Yaasiin inta la soo qaato nagta laga saaro oo dhagaha laga garaaco ayay rabaan si ay marmarsiyo uga dhigtaan oo ay dhahaan xabad joojintii waaba jabtay dagaalkii lagu laabtay. marka nimankan Turkiga iyo Carabtana waxay ciyaarayaan game ah war nimankan iskama dhicin karno macalinka weyn ku daaban yihiin xabad joojintan aan ku celcelino at least wax badan dad badan aan badbaadayay saasa la isku hayaa. marka caqligaas socda waa arkaynaa bari xootiga waxay sheegaan barnaamijkayga caawa nagayta waan filayaa inaad ka hesheen macluumaadkii wararkii barnaamijkii subaxnimo iyo kii galabnimo inta aad daawanna waa rajaynayaa inay daawan doonaan akhyaaray nabadgelyo.